hadda waxaan ku sugannahay waa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waa meel aad u qurux badan. Masha Allah, maanta waxaan idiin soo duubaynaa waa vlogii labaad, vlogii koobaad ee ku saabsan magaalada Muqdisho. Maanta marka waxaan dhex maraynaa waa suuqyadii Muqdisho, weliba meelihii ugu quruxda badnaa, ugu shidhnaa. Dadkeena Soomaaliyeedna runtii ay u baahan yihiin wax badan ka ogaadaan. Hadda waxaan soo gaarnay meesha khudrad baan ka adeeganaynaa. Masha Allah, waxay ku ganacsanayaan dadkani waa wadada hareeraheeda. Waa meel markaa dee nabadeedii iyo amnigeedii aad dareemi karaysaan. Hadda waxaan soo gaarnay mid ka mid ah taawarada ugu dheer ama ugu quruxda badan ee magaalada Muqdisho. Calow Tower baan soo gaarnay anagoo markaa soo booqanay meheradaha ku yaala Calow Tower, isla markaana dushaan ka daawan doona magaalada Muqdisho. Soo raaca, nala socda. Waxaan sii aadaynaa hadda dusha sare ee hoteelka. Masha Allah, magaaladii Muqdisho aan dusha ka daawanaynay. Waa magaalo aad u dhisantay, aadna runtii u qurux badan. Indhuhuna ay ku doogsanayaan marka ay dusha ka eegayaan. Idinka ka markhaatiya macnaha quruxda magaalada iyo sida ay u soo baxayso markaad dusha ka daawanayso. Magaalo aad u dhisantay, aadna u qurux badan. Dadkeeduna runtii ay ku soo dhaweynayaan, boholiyow kalgacal ay ku muujinayaan. Aadna runtii ay u jecel yihiin horumarka iyo inay weliba guuleystaan oo magaaladoodu sii jirto oo muddo fara badan loo soo tamashlay iyo dalxiis tago ay jecel yihiin. Marka inagoo ka daawanayna dusha sare ee magaalada. Hadda waxaan soo gaarnay meel ka mid ah meelaha ugu quruxda badan leh ee dhalinyaradu runtii ay u timaado inay ku nastaan, isla markaana ay isku wareystaan, ku kulmaan, ku bahashaalaan. Waa meel runtii iyada lafteedu aad u qurux badan inaad timaadaan aan jecelahay. Markastoo aad magaalada Muqdisho soo booqato, haddii aad jeceshahay meel aad ku nasato galabkii oo kale ilaa fiidkii, waad iman karaysaan hoteelkan, restaurantigan. Meel aad u cajiiba weeye. Casar liiqa galabtii baan maraynaa. Waxaanu runtii ku damaashaadaynaa cadeedii oo sii dhacaysa iyo anagii magaalada ku damaashaadayna. Hadda waxaan u soo baxnay inaan bartamaha suuqa dhex marno. Jidkii ugu caansanaa magaalada Muqdisho ayaan hadda dhex maraynaa, Maka Al-Mukarrama. In fara badan baan maqli jiray Maka Al-Mukarrama, laakiin maanta anigaaba dhex socdaba, waa aniga ku dhex damaashaadaya. Masha Allah, dhalinyarada ka shaqaysanaysa. Salaadii baan noo soo gashay, waxaan markaa ku tukanay wadada hareeraheedii baan ku tukanay. Salaadii baan gudanay waajibkii. Socodkaygii baan haddana sii wadanay iyo safarkaygii. Magaaladan runtii cajiib. Halkan oo kale waxaad haystaaba caalam inaad joogto, caalamkii oo kale weeye. Indhihiina idiin markhaatiya. Runtii waa meel aan jeclaan lahaa inaan ku soo noqnoqdo, in fara badanna laga helo, waayo dee quruxdeedaan u jeednaaba iyo weliba gaadiidkii dadweynaha bajaajtii. Masha Allah, waa kasii soconay oo safarkeenan hore sii wadanay. Haddana waxaan soo galay hotel kale isaguna casriya, isla markaana ku habboon in lagu nasto, lagu damaashaado, lagu caweeyo. dee wadinkaan arkayo Masha Allah, waxaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan Muqdisho cadde. Axmedow, haye galabta saa u soo baxday maanta magaalada Muqdisho ku wareegtay. waa damaashaadayna maanta. Haye magaalada qurux badan baynu joognaa. sax hore u socod. marka waa ku dhex damaashaadaynay. sax meelo kala duwan baynu soo aragnay oo qurux badan. sax hoteelada qurux badan baynu booqannay. sax hadda jidkii waxaynu maraynaa arkada. sax lambar 4 taasa. lambar 4 baasana. sax marka saxaabay waxaan mar walba jeclaysanaynaa inaad ii soo gudbiyo sax Muqdisho iyo quruxdeeda. sax iyo qalba halka ugu quruxda badan leh halkii dhalinyaradu isugu timaado. xaraga official maxaa leeyahay ninka caanaha geel ku lacabay. ninka waxaan leeyahay ها aniga caasimada mar soo gaad. صح أحمدو حكم ومقعد Axmedow waa isku kaleex baan joognaa hadda. صح runtii isku kaleex هاي weligayba waan maqli jiray. صح qof kastoo reer Muqdisho oo aan la soo xiriiro isku kaleex baan ka maqli jiray. صح laakiin maanta waa ban joogaa badee waa واك meel aad u qurux badan xaway la soo raaca si aad isku kaleex u daawataan. waxaad u malaynaysaa inaad caalamkii joogto. حقنا ماشي إيد ذهب يكون قرنت مجدا وإسكوسك أو أركض والله برافر حقنا هذا وعمل عصب وإفرتي حياة
حياة ماركت. هاي hadda waxaan taaganahay waa isgoyskii taleex baan taaganahay isgoyskani waa isgoyska ay baabuurta iyo basasku ay ka baxaan basasku marka waxay u kala baxaan eegas Madiino iyo isgoyska xaafadda Madiino iyo ex control bay u kala baxaan صح marka waa meel dee basasku ay kala baydhaan bashaashtuna ay ka laabato waa meel runtii dadweynuhu ay istaagaan oo ay ka fuulaan basaska marka intii aan anigu xamar joogay had iyo jeer waxaan arkay iyadoo la raacayo bajaajta markii ugu horreysay arkay iyadoo bas la sugayo oo bas inta la qabsado la fuulayo marka baskiina waa هاي asxaabi hadda waxaan joognaa aan soo galay moolkii xayaat waa mool cusub oo magaalada muqdisho ku cusub isbuuc gudihiiba hadda uu furan yahay meel aad u qurux badan dhammaan baahiyahaagii kala duwanaayo dhanna waad ka helaysaa hadday noqonayso dharka cuntada hadday noqonayso weel wax kasta oo aad u baahato marka na soo raaca si aad u aragtaan ما شاء الله waxaynu dabashadaynaa weli dalxiiskeena magaalada muqdisho aynu ku dhex jirnaa weli waxaynu ka bixi laanahay xayaat mool hadda waxaynu soo galay qaybtii supermarketka iyo biyaha iyo sharaabyada iyo buskudada iyo waxyaabihii loo baahnaa oo dhan baa halkan yaala marka waa sii tukaamaysanayna nala socda namarsh